habeen wanaagsan daawadayaal dowladda Itoobiya waxa ay si toos ah ugu soo biirtay dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland. Afar diyaaradood oo ay ku wadeen ciidamada Itoobiyaan iyo saraakiishooda iyo saanad military ayaa maanta caga dhigatay garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee magaalada Kismaayo. Ciidamada badda ee Jubbaland caawa gaafwareeg ayay ka wadaan xeebaha deegaanadaasi. Maxaa soo kordhay xogay ugu dambeeyay iyo go'aanka dowladda federaalka ee laga sugayo ayaynu muuqaalkan caawa ku gorfeen doonaa. Haddii aad nagu cusubtiin fadlan ku soo biira page-kan oo ka mid noqo saaxiibadayna ugu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaallo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino. Tallaabooyinka la xiriira dhinaca militariga ee dowladda federaalka Soomaaliya u qaadayso dhinaca Jubbaland waxa ay keentay in Itoobiya oo xurguf dhinaca diblomaasiyadda kala dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya markan ay si toos ah ugu soo biirtay dagaalka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa ay gardaadinaysaa madaxweynaha doorashadiisu ay diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Afar duulimaad oo siday saraakiil iyo ciidamo iyo saanad ciidan ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Dhammaan ciidamadan iyo saraakiisha waa kuwa Itoobiya laga soo diray. Waxaa la sheegay in saraakiishan kulamo qarsoodi ay la qaateen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo dowladdu ay ku tilmaamtay doorashadiisa mid aan waxba ka jirin. Axmed Madoobe iyo saraakiisha Itoobiyaanka ayaa kulankooda ku gorfeeyay arrimo la xiriira xaaladda ka taagan deegaanada maamulka Jubbaland. Waxa uu kaga mahadceliyay sida ugu dhaqsiyaha badan ee ay Itoobiya kaga jawaabtay dalabkiisii hore ahaa in saraakiil iyo ciidamo Itoobiyaan ah ay si degdeg ah ku yimaadaan magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland ka gadaal markii uu garab iyo taageero uu ka waayay dhinaca Kenya aadna ay u soo bateen ciidamadii daraawiishta maamulkaas ka tirsanaa ee ku biiraya dhinaca garabka dowladda federaalka Soomaaliya. Saraakiishan iyo ciidamadan waxa ay si toos ah ula wareegayaan amniga madaxtooyada iyo amniga madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Waxa la sheegay in ay ka difaacayaan waxa lagu sheegay duulaan kaga soo fool leh dhinaca Raas Kambooni oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo fara badan muddooyinkii ugu dambeysay ay aad ugu daadgureynaysa halkaasi. Talaabadan ay Itoobiya ku cadeysay inay garab istaag u muujinayaan Axmed Madoobe waxa ay xadgudub weyn ku tahay madaxbannaanida Soomaaliya iyadoo si toos ah u soo faragelisay siyaasadda Soomaaliya. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu mas'uuliin ka tirsan maamulka gobolka Gada ee taabacsan aragtida siyaasaddiisa uu u diray dhinaca Itoobiya oo ay kula soo shireen saraakiil Itoobiyaan ah keentayna in tallaabada maanta Itoobiya ay ku gaareen magaalada Kismaayo ay soo dejisay. Dowladda federaalka weli war rasmi ah kama soo saarin balse xogo muhiim ah oo aynu caawilna ayaa xaqiijinaya in dowladdu ay qorsheynayso in gebi ahaanba ay hakad geliso dhaqdhaqaaqa garoonka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan isla markaana soo rogto xayiraad guud maalmaha soo aadanna si guud loola socon doono xaaladda garoonkaasi iyo dhaqdhaqaaqiisa. Geesta kale wararka ka imaanaya isla caawa deegaanada Jubbaland ayaa sheegaya in ciidamada ilaalada xeebaha maamulkaasi ay bilaabeen gaafwareeg xeebaha guud ahaan deegaanada Jubbaland. Waxa soo baxaya tuhun in ciidamo doonaya inay ku biiraan garabka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku safrayaan dhinaca badda ayna doonayaan inay ka hortagaan. Si guud ayaa heegan loo geliyay xaaladda Jubbaland waxa ay u muuqataa mid markan cirka isku sii shareerayso. Waxayse talaabadan ay keeni kartaa isku dhac xitaa sababi kara in labada dowladood Itoobiya iyo Soomaaliya ay gacanta iskula tagaan. Itoobiya ciidamo kumanaan kun ayay gudaha Soomaaliya soo gelisay waxaase dowladda federaalka ay ku tilmaantay tallaabada ciidamadan Itoobiyaanka gudaha Soomaaliya ay ku soo gelinayso in ay tahay mid jibinaysa nabadda geeska Afrika isla markaana Itoobiya ay ka tagtay deris wanaagga. wixii warar ay ku soo kordha xaaladahan wararkeeni warbixinadana dambe ayaad ku daawan doontaan. Nabadgelyo.